daawadayaal halkani waa Goobjoog TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wardheer oo xiliyadan oo kala daawataan waxyaabaha aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxa kamid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax lagu soo rakibay oo lagu qaaday saldhigga degmada Waabari ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda uga qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga gobolka dowladda Uganda waxay faahfaahin ka bixinaysaa martigelinta shirkan oo barbar istaag loogu muujinayo qaxootiga gobolka waxaan idin hayaa sidoo kale akhbaraadkii dibadda aad ku daawan doontaan maxaabiis Mareykan ah oo badbaadiyay kuwa kale xabsi kula jiray dalkaasi Mareykanka qodobadaas iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wardheer ee Goobjoog TV ودير قرو ونكسن وتهدى وضيال انتاسي أنا دي سو قد بني وغضبضي يقوى وينا برامج كوردير Goobjoog TV حرمت اللي حي ستة وصيدين كجي ماريا سيدا سلسلة من أخبارتها فيسبوك إنه كل النهاي أيات كلا سو عنكرتان برنامج كان أينو كبلاون أي كل وقت طبعا قفضي يكون جريوتي ترى كبضان أبو بكل ولباتن كان أنا ويكون أوابين قرح لو أديك صديق جاري وحيابها قرح لو صور ركبي وكحيري نين إساسو ميدامي كأولو كل فتي دربك هره dhismaha saldhigga degmada Waabari ee magaalada Muqdisho saldhigga ayaa kaabiga ku haya wadada Maka al-Mukarrama meel aan sidaas uga fogeen isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho toddoba ruux ayaa geeriyootay 10 kalena waa ay dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay saldhigga booliska ee degmada Waabari wadada ayaa ahayd mid mashquul badan markii qarax uu dhacayay waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad shacab ah oo wadada adeegsanayay iyo kuwa fadhiya hareeraha wadada waxaa burbur xoogan uu soo gaaray inta badan xarumaha ganacsi iyo saldhigga booliska oo aan la cadeyn in bartilmaameedku uu ahaa afhayeenka wasaaradda ammaanka Axmed Maxamuud Maxamed ayaa warbaahinta uga warramay khasaaraha qaraxa ka dhashay inta dawladdu ay og tahay waa u jeedin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin 5 ruux meesha ku dhimatay 7 ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka Soomaaliyeed ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya wax khasaaraha soo gaaray ma jirto waxa Ilaahay ugu mahadcelinaynaa cadawgaas taagta daran tabar yareeyay oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa ciidankeena u diyaarsan mar walba inay shacabka badbaadiyaan sida booliska sida nabad sugidda insha Allah ta'ala mar walbana ciidankeena saas u feejigsan yahay haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan leeyahay shacabka degan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho waxaan leeyahay cadawgaas manaxaha ah horarka ah dhibka badan u jeedin maalin walba inuu damacsan yahay inuu qasaaro shacabka Soomaaliyeed inuu u geysto rabo walaalayaal waxa ogtihiin cadawgaas inay naxin inuu horar yahay in liska celiyo ciidan iyo dawlad iyo shacabba si awood aan iskaga celino إن شاء الله تعالى إلهي وفشلي قرح دمعسنايا إن سلقة قصارى أذق أي جيستان إلهي وفشلي وحصل لقى وجدي وضو وتوح قصارى سوق على مجرته عيدا كلامنا أمني وحومها علنا أنا عطك وزارة أمني وكوها الله مروا بس في جسيهين وعذو يقول يرسيهين شعب كصومالي دوحن ليا جوك بنادر دقن وديار جروا مروا البوا عذو جاس خرر كامن نحاها دين إسلام هي سنين in aan iska celin halo diyaar gareeyo waa mid kamid ah wadooyinka loogu baarista badan yahay marka la eego ciidanka dawladda iyo kontrolka ay ka wadaan wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho halkan waa saldhigga booliska ee degmada Waabari dadku waxay isweydiinayaan cidda fududeysay qaraxa gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay saldhiggan dad badan ayaa ku geeriyooday Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho wali waxa daawareysaan barnaamijka Wardheer Goobjoog TV xarunta dhexe iyo daawada kaaga imaanaya
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dalka Uganda waxay uga qayb galayaan shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga gobolka. Shirkan ayaa halku dhig looga dhigay sanadkan garab istaag qaxootiga, waxaana ka qayb galaya madax ka socota ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo waliba hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo UNHCR. shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii dareen gaar ah loogu muujin lahaa qaxootiga gobolka. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku sugan magaalada Kampala dalka Uganda, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Uganda. madaxweynaha ayaa Uganda uga qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga oo ay ka qayb galayaan madaxweynayaal iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha qaxootiga, kaas oo martigelinayo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. shirkan ayaa furmaya maanta oo Khamiis ah, waxaana socon doona 2 maalmood. madaxweynayaal hay'ado caalami ah iyo kuwa qaxootiga taageera ayaa shirkan ka qayb galaya, waxaana qorshuhu yahay in lagu ururiyo lacag dhan 8 bilyan oo dollar, taas oo wax looga qabanayo xaaladda bini'aadanimo iyo biyari ee ka dhashay qaxootiga ku qulqulaya waddanka Uganda. dowladda Uganda ayaa martigelinaysa qaxooti gaaraya 1.3 milyan oo qaxooti ah, kuwaas oo ay ku jiraan qaxooti Soomaaliyeed. qaxootiga Soomaaliyeed ee Uganda ku sugan ayaa isugu jira kuwa xeryaha qaxootiga ku jira, qaar kale oo badan oo ganacsato ah. dowladda koonfurta Suudaan oo ka mid ah dalalka ka qayb galaya shirkan ayaa waxaa tan iyo 2013 Uganda galaya qaxooti badan oo u dhashay waddanka koonfurta Suudaan oo ay dagaalo ka jiraan. madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmaya dhigiisa waddanka Uganda iyo madax kale oo shirka imaanaya, kuwaas oo uu kala hadlayo xiriirka labada waddan. madaxweynaha ayaa la kulmaya dhigiisa waddanka Uganda Yoweri Museveni oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada waddan. Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, waxaana Soomaaliya ka jooga ciidamo gaaraya 6222. ciidamadaas ayaa si gaar ah howlgalka ugu qaabilsan magaalada Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose. madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in uu dhigiisa kala hadlo si guud arrimaha howlgalka AMISOM, gaar ahaan ciidamada Soomaaliya ka jooga, sida ay u dardargelin lahaayeen in ay dowladda gacan ku dhigto deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. sidoo kale qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Uganda sidii loo daryeeli lahaa iyo arday badan oo wax ka barata jaamacadaha waddankaasi. waxyaabaha kale ee la filayo in madaxweyne Farmaajo uu kala hadlo dhigiisa Uganda Yoweri Museveni ayaa ah arrinta ku saabsan dalku galka oo iyadoo marxalado kala duwan soo martay, oo xilliyadii dambe dadka Soomaaliyeed dalku galka ay ka qaadan jireen airportka. ugu dambeyntii fiisaha laga qaadan jiray safaaradda Uganda ee Muqdisho ayaa hadda jirin oo loo bedelay qaab online ah, adkaatayna in la helo arday badan oo ogolaasho waxbarasho helayna ay u suurageli weysay dalku galka oo adag awgeed. maxamed cumar cabdinuur dhaqane, goobjoog, Muqdisho. dhanka kale, danjiraha joogtada ah ee dowladda Uganda u fadhiya qaramada midoobay ninka la yiraahdo Adonia Ayebera ayaa isla ka hadlay shirkan qaramada waa dowladda Uganda ay martigelinayso ee diiradda lagu saarayo arrimaha qaxootiga gobolka. It's organized by the Ugandan government to really, get support from the international community. As you know, Uganda has been really hosting, a lot of thousands of refugees, and Uganda now is being touted as a model of how to host refugees globally. Especially, community has accepted them. Our communities have accepted them into their schools, into their health facilities. But as you know, that comes with a burden. So this conference really is a solidarity conference to help Uganda, really cope with this refugee, crisis due to instability in our neighboring countries. Adonia oo ah danjiraha joogtada ah ee qaramada midoobay oo fadhiya dowladda Uganda waxa uu sheegay inay dowladda Uganda martigelinayso nabahaantii shirkan lagu barbar istaagayo oo dareen gaar ah lagu siinayo dadka qaxootiga ku ah dalkaasi Uganda. uu sheegay in koonfurta dalkaasi inta ugu badan ay degan yihiin qaxootiga, kuwaas uu sheegay soo dhaweyn halkaasi ay ku heleen. dowladda Uganda waxay martigelisay in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo waliba u badan dadka soo jeeda South Sudan ama koonfurta Suudaan. wuxuu sidoo kale Adonia uu sheegay in si wada jir ah madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo xogayaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa si wada jir ah ay u shir gudoomin doonaan shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga gobolka. waa tahay wararkii dowladda Uganda iyo socdaalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo waliba shirkaasi looga hadlayo arrimaha qaxootiga. haddaynu intaa ku dhaafno barnaamijka wardheere ayaad ku daawanayseen. iminkana wararka kale aan idinkugu hayo barnaamijka. maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay wadaan qorshe
al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka. gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in qorshahaasi meel wanaagsan uu marayo sida ugu dhaqsiyaha badan lana ay u qaadayaan dagaal ka dhal ah xoogaga al-shabaab ee ka dagaalama deegaano badhaadh ay ka mid tahay. cabdirashiid cali goone ayaa sidan u sheegay goobjoog t v. annagu qasad gaara iyo ujeeddo gaara kama lihin gobollada maqan iyo degmooyinka maqan ee jubbaland. qasadka iyo ujeedka innagu waxaa weeyaan inaan xoreyno. xilliga la xoreynayana waa xilli u gaara ciidamada ku shaqo leh. dadku inay dhibaataysan yihiin, inay silicsan yihiin, inay rafaadsan yihiin cid walba way og tahay. annaguna waa ognahay, adduunkuna waa ogyahay, soomaaliya dhanna way og tahay, meel kastoo shabaabku joogo. sidii aan uga qaadi lahayn baa annaga qorshaheedii wadnaa una xoreyn lahayn, ulana mid noqon lahaayeen nolosha ay haystaan kuwan xorta ah kismaayo kale jooge, afmadow jooge, dhoble jooge, badhaadhe ma wada haystaan. badhaadhe boqolkii 10 bay haystaan. district xaruntii bay haystaan badhaadhe. xeebahana waa xor, berriguna waa xor boqolkii 8 district badhaadhe. laakiin degmadii bay haystaan, xaruntii degmada haystaan, marka boqolkiiba 10 wey. marka badhaadhe district oo degmadii ah xarunteedii iyo xagar iyo jamaame iyo bu'aale iyo meelaha kale ka sii jubbaland inay xoroobaan waan ku khasbannaa. in ay ummadooda wax la qaybsadaan waan ku khasbannaa. afmadow iyo kismaayo iyo markii xaqiiqan loo hadlo inaan cirka marno mooyaane dhulka ma mari karno. meeshaan joognana waa kismaayo weye, maamulka oo dhan dowladda jubbaland kismaayo jooga. marka gobolka iska daaya jubbaland oo dhan buu u bilaamayaa, shaqadeeda bilaamaysaa. beerihii iyo webiyadii iyo haddii la kusoo horumarkiina meelaha hadda maqan bay ugu badan yihiin beerihii laga soo saari jiray. dhanka kale maraan wax ka weydiiyey tan iyo intii xafiiska uu joogay waxyaabihii uu qabsoomay ayaa waxay ugu jawaabay sida tan. meel ziiraan ka bilownay, wax ziira ka hooseeyaan ka bilownay, laakiin hadda maanta waxaan maraynaa meel lagu faani karo oo shalay anigu markaa. cabdirashiid cali goone oo ahaa gudoomiyaha gobolka jubbada hoose oo ka warbixinaya qorshaha maamulka dowlad goboleedka jubbaland ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, halkaa oo waxgaradka iyo aqoon-yahanada ay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan xoojinta heshiiskii laba geesoodka ahaa ee u dhaxeeyey maamulada galmudug iyo puntland, kaasoo qeexayay in la nabadeeyo magaalada gaalkacyo. xubnaha ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa halka uga dhawaaqay qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo nabadda magaalada gaalkacyo. wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya oo soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kulamo gooni-gooniya la qaatay odayaasha maamulka gobolka mudug, galmudug iyo puntland. kulamadan uu la qaatay wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa odayaasha waxgaradka magaalada gaalkacyo ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo dhaqangelin lahaa qodobadii laga soo saaray heshiiska ay magaalada gaalkacyo ku gaareen maamulada galmudug iyo puntland. wasiir juxa ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn socdaalkiisa uu yahay magaalada gaalkacyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay ee magaalada gaalkacyo loona adkay lahaa nabadgelyada magaalada gaalkacyo. fariin ah in ay dowladda federaalka muhiim u tahay, waxna aysan la harayn in nabadgelyo iyo wadajir kama dambaysa laga gaaro magaalada gaalkacyo iyo khilaafaadkeedii soo noqnoqday. waa arrintaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee dowladda. waxa aan gaalkacyo ka rabnaa ama dadka deegaanka aan ka rabnaana ay tahay gaalkacyo dadkeedii ay wada jiraan oo horumarsan yihiin oo nabadda ka wada shaqaynayaan, wax wada qabsanayaan, oo meel fog eegayaan, oo gaalkacyo cusub iyo midnimo cusub iyo dhaqan cusub oo iskaashi ay samaynayaan, oo waxaan wax ka weyn ay ku xisaabtameen. taa ayaa la fiirinaya. waxaan aad uga mahadnaqayaa hawsha hordhac ah oo aad u wanaagsan oo ay meesha soo gaarsiiseen oo labada dowladood iyo shacabkeeda aad meel wanaagsan ku soo furteen in dadku isdhex galo, nabadda ka wada shaqeeyo, dhulka wada daaqo,
wixii ishu arrimaha oo taaganna iyadana la galo arrinta annagana waxay noo tahay mudnaanta kuwaad bay noo tahay baan ugu faraxsanahay inaan ku soo aaday iyadoo jawigu intii hore uu ka gedisan yahay oo aad isku meel wax u wadaan inta dhimanna waxaan jecelahay inaanu idinkala qayb qaadano gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan iyo sidoo kaleeto suldaan cabdinaasir jaamac seed ayaa dhankooda ka hadlay kulamadii uu wasiirku la qaatay inta uu ku sugnaa koonfurta magaalada gaalkacyo ee galmudug tixraacayna wadahadaladii soo socday iyo gudiyadii oo suldaan ka mid ahaa oo nagala shaqaynayay noo tixraacayna wasiiradii imaaday oo maalmaha hawsha nala waday oo waxaa naga go-an nabadda gobolka mudug inaan soo celino oo ka wada shaqeyno oo daris wanaag iyo walaalnimadii lagu wada noolaan jira marna uma dul qaadan karna dhibaatadii ay dadka soo mareen oo ognahay dadkan ilaa 30 sano in ka badan baa dhibaatooyin hayay waxaan ilaahay hortiisa u taaganahay oo aan u dadaalino oo bishaan oo dhan u hooyanayna inaan helnaa nabad annaga gacnayna ku keysano nabad aan gacmo shisheeye keenin nabad annaga ay naga go'do qulubteena ka timaa haddana waa aragnaa ifafaaleed inuu muuqday waxaa ilaahay lagu guuleeyay inay hadda dadkii wada daajino xoolahoodii daaqsinta inaan ciidamo isku dhafa sameeyno inaan caawo meel ku wada afureyno oo wasiirka arrimaha gudaha noogu yimid taa waxay ku tusaysaa ifafaale fiican iyo bilow fiican insha Allah waxaan rajaynaynaa masiirka Soomaaliya marar badan meel waxa la yiraahdaa wuxuu ku xiran yahay gobolka mudug waxaan u taaganahay inaan ka miro dhalinaa go'aankaasi sida xorriyadii iyo Soomaaliya uga bilaabatay gobolka mudug inaan u taaganahay horena waa u ballan qaadan marar badan haddana waa ballan qaadana inaan la ka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo wafdi hogaaminayo iyo wafuud hore u joogtay oo labada maamul goboleed ee galmudug iyo puntland ka tirsan ayaamihii ugu dambeeyay xagga nabadda ka wada shaqaynayay magaalada gaalkacyo maamulada puntland iyo galmudug meel fiicanna marahayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajeen inoo taabageliyo arrimahaas ayaa wasiirku nagu yimid aan ka wada hadalnay si fiican bayna u dhaceen si goonigooniya iyo si guudba waa u wada kulannay wasiirada iyo maamulada gobolka kala goonigoonida kala duwan iyo degmooyinka si gaar ah ula kulmay waxay ka wada hadleen danaha iyo shaqooyinka meeshan laga wado iyo wax laga rabo oo nabadda ugu horeyso ugu dambeyntiina odayaasha dhaqanka reer galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha way kulmeen qodobo badan baan ka wada hadalnay laakiin qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa xaaladda ka taagan gobolkan mudug iyo arrimaha u dhaxeeya maamulada galmudug iyo puntland Ali Nurcayn goobjoog TV gaalkacyo watahay madaxda dawladda iyo waliba odayaasha dhaqanka oo sidaas magaalada gaalkacyo ugu dhawaaqay in la xoojiyo dadaalada nabadeed ayaa daawateen wali goobjoog TV ay la socotaan barnaamijka wardheere ayuu idinka ka imaanaya xarunta dhexe magaalada muqdisho telefishinka waxaana soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii ciyaaraha iyo wararkii dibadda ha yeeshee isla wararkii gobolada aynu ku jirnaa odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado oo maanta shir yeeshay ayaa sheegay in cid sheegan karta aysan jirin qofkii lagu dilaa isagoo taagan dariiqa oo lacag sharci darro ah ka qaadanaya gaadiidka iyo waliba dadka safarka ah warkaas oo aad loogu riyaaqay ay odayaashu waxay sheegeen bal in ay rajo ka qabaan in lagu yareeyo culeysaadka ba'an ee hadda lagala kulmo wadooyinka gala ama ka baxa magaalada Cadaado oo isbaarooyinka ama jidgooyooyinka aan sharciga ahayn ay ku soo badanayeen wayihii dambe kulan odayaasha dhaqanka degmada Cadaado ay maalmihii ugu dambeeyay yeelanayeen ayay maanta ka soo saareen go'aanan lagula dagaalamayo isbaarooyinka sharci darrada oo xilliyada qaar ay dhigtaan maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada safarka ah go'aanada ay odayaasha dhaqanku ka soo saareen jidgooyooyinka sharci darrada waxaa ka mid ah in qofkii lagu dilo ama waxyeelo kale ay soo gaartay aysan jirin cid sheega karta iyadoo koontaroolada hadda yaal ee ka madax bannaan maamulka loo qabtay muddo kooban in lagu qaado goobta odayaasha dhaqanku ay ku shaaciyeen go'aamadan waxaa joogay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka degmada Cadaado saraakiil ciidan iyo qaybaha kale ee bulshada gudoomiyaha maamulka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole ayaa warbaahintu akhriyay qodobada odayaasha dhaqanku ay ka soo saareen jidgooyooyinka sharci darrada ah wada hadal dheer iyo falanqeyn dheer iyo dood dheer ka bacdi waxay ku gaareen heshiiska hoos ku qoran oo sida soo socda in aan la dhiga karin isbaaro inta Cadaado iyo aaga ay degaan dadka reer Xaaji Saleymaan in la dhiga karin isbaaro Cadaado iyo inta laga xukumo iyo qaasatan inta ay odayaalkan ka taliyaan inaan aysan jirin cid dhiga karta isbaaro number 2 in cidii dhigata isbaaro lagu dili karo ciidanka amnigu
ay u madax bannaan yihiin iyo dowlad goboleedka galmudug in ay ku dilaan oo ay ciidanku tilaabo cad ka qaadaan ciddii isbaaro dhigata oo lagu arkayo isbaaro u taallo. Nambar 3 ciddii isbaaro ayadoo dhigatay lagu tago oo ciidanka ay ugu tagaan oo ay ku dilaan ama ay ku dhaawacaan in aan cid sheega karta oo aan wax xuquuq ah inuusan qofkaasi lahayn in la ogeysiiyo intaan ciidanku ku duulin ka hor ciddii isbaaro u taallo inay ka tagto isbaarada. waxaa la ogeysiiyey maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bishii 6 2012 inta qoraxdaas ka dhiman ayuu xor u yahay qofku inuu ka tago. haddii qoraxdaasi ku dhacdo waa afiisadii waa qabaa shaqadiisa ayaa laga qabsanaya. waxaa dowlad goboleedka galmudug laga codsanayaa in ay markii isbaarooyinkaas ay qaadaan ay amniga sugaan oo aysan dhicin inay dib dambe isbaarooyinkaas u soo laabtaan. nabadoon Axmed Ciise Geedi iyo nabadoon Ciise Gurey oo ka mid ah 13 oday dhaqameed ee saxiixay warqadda lagula dagaalamay isbaarooyinka sharci darrada ee la dhigtay cadaadii deegaanada ku teedsan ayaa sheegay in arrintan maamulka ay kala shaqeyn doonaan. waxaan rabnaa isbaaro waxaan ku soo goyn in la mariyo waajibka ay leedahay qofkii fariista waajibka ay la mariyo shariicada islaamka la mariyo waxa la xukumaysa lagu qaado ida sheega karin wuxuu dileen loo sheega maayo wuxuu dileen soo nama baahane nama aha naga mid maaha maanta laga bilaabo naga mid maaha anaka markay fiiriyeen dhibaatada jirta ee abni darrada ah ee isbaarooyinka ah ee isdilka ah foolxumada ay waxay qaateen inay isbaaro qofkii dhigta saxiixaan sharciga islaamka in lagu fuliyo ay doorteen ayagu shaqadii ay lahaayeen waxay ahayd inay tala go'aan lagu ka soo baxdo go'aankiina way soo gudbiyeen. warkan ka soo baxay odayaasha dhaqanka degmada Cadaado wuxuu imaanayaa xilli mararka qaar maleeshiyaad hubaysan ay dhigtaan isbaarooyin sharci darro waxaana go'aanadaan ay fududeyn doonaan in lala dagaalamo jidgooyooyinka. Daahir Faarax Ahmed, idaacadda telefishinka Goobjoog, magaalada Cadaado. wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay in gurmad caafimaad la gaarsiinayo cusbitaalada ku yaala magaalada si looga qayb qaato baahiyaha caafimaad ay qabaan dadka ku jira cusbitaalada. hadalkani waxaa sheegay wasiirka caafimaadka maamulka oo booqasho ku tagay cusbitaalka dhexe ee magaalada iyo waliba goobo kale oo caafimaad oo dadka gurmadka caafimaadka ay ka helaan. sidaas ayuuna wasiirku sheegay in ay sii wadayaan gurmadkay u baahan yihiin dadka dhibaataysan gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha dhanka caafimaadka. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug Nicmo Maxamed Catoosh ayaa booqasho ku sameysay xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada yaala ee magaalada Gaalkacyo. wasiiradda ayaa booqashadeeda waxaa ku weelinayay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo xubnaha wasaaraddaasi. wasiirka ayaa u kurgalaysay sida ay u shaqeeyaan xarumahaasi iyo sidoo kale xaaladda caafimaad ee dadka bukaanada ah. Nicmo Maxamed Catoosh wasiiradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay in dhammaan xarumaha caafimaadka ay booqashada ku sameysay ay ku sugnaayeen dad badan oo cudurro kala duwan u yaala isla markaana waxa intaas ku dartay in dadkan ay u baahan yihiin gurmad dhanka dawooyinka iyadoo sheegtay in ka wasaarad ahaan ay gacan ka geysan doonaan. far aan ku soo gaarnay 2 usbuuc ah hay'adaha caafimaadkan aan ku kormeereynay iyo hay'adaha qaxootiga ee dhibka ka jira magaalada Gaalkacyo ee Mudug. maanta waxaanu soo gaarnay MCH-ka South Gaalkacyo oo saa u arkaysaan dadweynaha ku nool dhinacaan oo dhan ay gaarayaan tiradooda almost maanta 100 qof waa aragnay 100 caruur iyo 100 haween ay wax ka qaataan usbuuc walba xag caafimaad iyo xag meel ay ku dhalaan meel nutritionka laga siiyo. marka waxaa noo muuqato MCH-kan inuu aan laga maarmin haddana ay shaqooyin badan ka kala socdaan. waxa ka socdo on Gaalkacyo ma soo koobi karna shuban biyoodka nafaqa darrada jadeecada 100 cudur ba isdaba ordaayo dhanka Gaalkacyo intaan meel kormeer soo marnay. maanta se waxaan ku soo xireynaa kormeerkeennii MCH-kan South Gaalkacyo ku yaalo saad u jeedaan waxa isla kaashada MCH-kan dhisay UNICEF iyo SDRO hay'adda la yiraahdo waagi la dhisay gaabo badanna wuu soo galay oo hay'ado badan oo wax siin jiray ay ka joojiyeen. haddana alxamdulillah wax yar oo IOM ay bilaabeen 15 May
kuna eg 15 July oo aan rabno insha Allah meeshiisa dad badan oo client ay jiraan ay la socdaan caruur badan lagu daaweeyo meeshan hooyooyin uurle lagu daaweeyo Allah inaan service-kan kale istaagin oo soo socon lahaa u sii socdo una sheegayna hay'adaha adduunka iyo international gacanta wixii ku hayo annagu haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka galmudugna fiiro gaar ah u yeelnayna MCH-kan Ali Nurayn Goobjoog TV Gaalkacyo dadka ku dhaqan deegaanka Sayla ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya diyaarado aan la garan cid leh kuwaasi oo joog hoose ku duulaya waliba dul heehaabaya deegaanada dadkan ay ku nool yihiin habeenkii ayay sheegeen inay ugu daran tahay oo diyaaradahan ay aad u dareemaan dadka Sayla ku nool waxayna sheegeen waliba inay arkayeen diyaaradahan oo hub culus ku tuuraya deegaano dad rayid ah oo xoolo dhaqato ah ay kaga sugan yihiin gobolkaasi Awdal diyaaradahan ay sheegeen in labadii habeen ee u dambeeyay guuxooda ay maqlayeen iyo hub ay ku tuurayaan waxay ku tilmaameen inay ka soo kaceen dhanka gacanka cadameed waxayna sheegeen inay arkeen meel ay hub ku duqeeyeen waxayna halkaasi ku dhintay sida ay sheegeen ilaa 3 neef oo ari ah diyaaradihii balaleed bay noqdeen way baqtiyeen markay iska baqtiyeen iyaan anaguna shakino tooshkina waan iska baqtinay dabka wuxuu korsaynay waan iska aasnay telefoonkaygana markaa waan iska xidhnay cabsi baan naga shaydi cabsi markay naga shay meel naga koonayso oo sidaa kale naga ah iyay ku riday rasaasta gib way ku baastay ilaa in dheer inta geedka goobka noo jirta iyay ku riday dhulkiiba dabcad ka dhigtay daraar caadi anagu hadii waan dhabarnaydi la badbaadinay wixii aan la joogna oo kala caymado mid yaadi meel in baxsatay in kala buu noqday kolkay naga tagtay iyadoo bilaa ilaa sabay halka ka jireso halka wixii sida badda ugu nooga laam waxay tahay ma garanay waxaan weyn iyo waxaan maqlay waxaan min ma yahay kadib markaa kadib walku waagu bariyay baan wixii doodoonay wixii aan geeli baxsaday maan intii aan helayna waan kaxayno meel biilaangay subaxdii dambaan ku soo noqonay mid bakti walkii yeela iyo mid awacano madax kaga dhacday wax oo halkii fadhiya deegaanka dooxa garayood oo ka mid ah meelaha diyaaradahaasi lagu arkay waxa ku nool dad ay abaaruhu ka soo barakiciyeen deegaano kala duwan kuwaasi oo sheegay in arintan ay hadda cabsi kale ku abuurtay weeyaan meesha la yiraahdo goryood dooxa goryood dooxan reer baa ag degan waa dad masaakiin ah waa dad xoolo dhaqato ah waa dadka guryahooda aynu arkana intay leeyihiin iyo halka ay magaranaysa ay ku jiraan waa dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen waa dad aad u taag daran haddana tii waxa u raacda wax baa ku soo cusboonaaday gobolka maalin walba waxaad maqlaysaa meel bay diyaarada fadhiisatay hore waa tii u fadhiisatay halkan Bariisle buurahan dhexdooda in fara badan bay wax ku riday meelo aan dad joogin markaas imaka waxa la sheegayaa meelo kale in aan ku soconaaye inay xoolo waxyeeleysay dadkii dhibtaas haysata haddaba dadkii masaakiinta ahaa ee gobolka deganaa markay taasi haysato waxaa la doonayaa horta diyaaradahani waxay ka soo kacaan halkan badda kuwan shalay markii la eegayay halkan badday ka soo kaceen habeen oo dhan saasay noo dul taagan yihiin oo gariirka baxaya iyo waxa badda lagu ridayo iyo guuxooda ayaa seelacna dawqiya dhib fara badan baa runtii dadku qabaan arrintaasi taar baanu ka dirnay saaka taar baanu ka dirnay wasaaradda arrimaha gudaha u dirnay iyo xukuumadda bishii May 2016 waxa habeennimo ay diyaaradii hub ku tuurtay meel u dhaxaysa Booram iyo Saylac waxaana mar dambe la sheegay in diyaaraddaasi laga lahaa dalka Masar diyaaraddaasina ujeedkeeda lagama waramin watahay wali wax daawanaysan barnaamijka Warneere Goobjoog TV xarunta dhexe iyo daawada kaaga imaanaya Ramadaan Kariim ayaynu dileenahay laakiin waxaa nasiib wanaag ah inuu gabagaba marayo ilaahay ramadaanka ha inaga aqbalo dhowr maalmood kadib waxaa loo dabaldegayaa munaasabadda Ciidul Fidriga oo caalamka muslimka ah ay u dabaldegayaan Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha iminka diyaar garowga ba'an ama ballaaran Ciidul Fidriga ay ka soconayaan wararkeena barnaamijyadeena soo socda maalmahan waxaad aad ugu daawan doontaan sida looga ciidayo dalka iyo waliba ciidan waxa ay kaga duunaan doonto ciidaha kale
bal aynu ku bilownay ee wardheere ila daawada warbixintan iyo magaalada baydhabo ama baydhaba sida uu diyaargarowga uga socdo markaad magaalada kor ka soo eegtid waxaa kuu muuqanaya magaalo bilicdeeda qurxoon markaad gudaha u gashid magaaladu waa goob saxmad badan dadka ayaa ah kuwa ku mashquulsan iibsashada dharka ciida ciidulfidriga ayaa naga harsan keliya maalmo qura caruur iyo haween ayaa suuqii isku cariirinaya cid walba waxa ay rabtaa inay noqoto qofka ugu horeeya ee wax laga iibiya meelaha ugu mashquulsan suuqa magaalada baydhabo markaad dhexmartid waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dharka harqaanlayaasha agabyada ay ku ciyaaraan caruurta maalmaha ciida waa kuwan qaar ka mid ah harqaanlayaasha iyo kuwa gada bacadlayaasha oo sharxaya xaaladda suuqa iyo diyaargarowga ciidulfidriga لكن ما دامت في هور إيده وهورنا هاي لكن تنين وسلي للفضائل كل والمقواين الدين عادي شغلت ثاني ما يكون قدوم أنت إيدك ما يبغى قدوم لكن تنوى بيد من فين هاني هور إيه والبوم قدوم سلي هور ولا إنهلان اللي هلاين marka qorshayaasha inay dhaqaal faylasoo bilan لازم تي من كوب شقي وانت تغال فيلسوف بواقعن كهي بتاثر رجالهم إلا ما شغالين إلا كمية توسع من المساعد في هور إيه ولير شلدونيو ويبقى شلدونيو نصوب أوران فري ولا طلاي ولا يرى شلبتل يرى فكوي قابل نسقدي ولا قابل نسقدي ولا كي ولا دم بأستري ولا أصلي كوين مرتين ولا يرى طلاي ولا يرى وقتنا بناتي مرتدي ولا يبين رايس تزايد ولا شكل ير لكن تفيلي هذا الأدي أسمان لكم لكن ما ندير كروه أبي سلادة وأفينك ربط جناحسك كونفور قلب الصومالية wuxuu ka waramayaa heerka ganacsiga magaalada baydhabo iyo diyaargarowga ciidulfidriga isagoona ugu baaqay ganacsatada iyo cid walba wax haysata inay caawiyaan dadka masaakiinta ah oo aan awoodin inay sida dadka kale ee wax haysta u ciidayaan aysan u ciida karin maylaha ummatu muslimiinta wasla sharafsanaha soonta haatan soonka inuu meeqay inay safayna faa'iideysadaan waqti إذا مركز مرتين إذا هذا الكويل ما كان فرحه سوق البيضة وأمي عمري تدوير وجردو الكيدي يا جردو راسنا في إيد البيضة بس كل ورقة وإلهي ورثي ما لها فرق إني أولادها عايش ولا بفكرني سئين جري أولادي إني إيدان إني بلدك جنوري ولا البلد وبركة وقوم دبعتيسن والدان أول مرة ما إنك باقينا في إلهي ورسي إني أولادها يلوم بفكر كارين إنجمنا قوين إنجمنا تذكر كلام الساكن تيون إيالشو بعد ما الحقيقين إلهي يسسي يوم موعينه ما يلعب البيت أو فايدة يسده maalmo kooban ayaa inaga harsan maalinta ciidulfidriga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa laga dareemayaa diyaargarowga maalintaasi goobaha kala duwan ganacsiga magaalada waa kuwa aad u mashquulsan waxaana dadka markaad la sheekeysatid harqaanlayaasha iyo goobaha lagu gado dharka ay ku sheegayaan in waqtigii ay shaqayn jireen waqti ka badan xilligan ay shaqaynayaan taasay u wacan tahay in cid waliba ay doonayso in waqtiga ay fursad soo hesho ay iibsato waxay maalinta ciidda ay kula dabaaldegayso cabdiqaadir warcadde telefishinka raadiyaha goobjoog baydhabo watahay warbixintaas iyo diyaargarowga munaasabadda ciidda intaa aynu kaga gudubno warcadde ayaa baydhabo inooga soo diray sidaan idiin ballan qaadnayna wararkeenna maalmaha soo socda waxaad ku daawan doontaan war la xira diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga haddii eebba yidhaahdo waxaa inoo soo socda wararkii dibadda sheeko xiisa badan ayaan daawada idiin hayaa bal ka waran adoo xabsi ku jira haddii taliyihii xabsigaasi wadna xanuun uu ku dhaco oo adinkoo meel bannaana jooga qisadaasi ay dhacdo maxaad samayn lahayd maxaabiistan waxay sameeyeen telefoonkii sarkaalka isticmaaleen halka ayaan kasii wadi doonaa sheekadaasi ha yeeshee markan waa cayaarihii cab federation cab ayaa la ciyaarayaa waxaa Portugiiska iyo Ruushka wada ciyaaray
waxay ku soo dhawaatay ciyaartooda 1-0 dowladda Ruushka oo martigelinaysa waa laga adkaaday Mexico iyo New Zealand wada ciyaarayna waxaa guuleystay Mexico qaranka ka socda oo 2-1 ku garaacay New Zealand dowladaha Mexico xulalka qaranka ee ka socda iyo Portugiiska ayaana hogaaminaya iminka gruubyadooda Cameroon iyo Australia wada ciyaarayna 1-1 ay isla dhaafi waayeen sheekadanta kale waxaan u deenayaa maxamed xuseen qaliinle oo inuu sii maqaadaya wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn daawadayaal kooxda kubadda cagta dekedda waxaa ka dhaawacmay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta khadka dhexe axmed xasan macaani oo ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee kooxda kubadda cagta dekedda ayaa ka dhaawacmay isagoo ku dhaawacmay tartanka salaxa shirka leh ee lagu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaan ciyaartooyda dalka iyo sidoo kale ciyaartooyda kooxda kubadda cagta dekedda ayaa ka walaacay dhaawac soo gaaray laacibkooda macalinka hogaamiye kooxda kubadda cagta ee dekedda Yuusuf Cali Nuur Cali ayaa la hadlay saxaafadda isagoona sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawac soo gaaray laacibkiisa runtii nin boos muhiim noo haya ayuu ahaa macaani waana kooxda iyo national teamkaba way tabi doonaan runtii laakiin waxaan jecelnahay sidii aan ku bedeli lahayn booskiisa ama ciyaartooyda kale ee asaga qofkii kaydka u ahaa ama aan ku bedeli lahaa ayaa aan diyaarin doonaa haddii ilaahay rah waana ka xunnahay dhaawaca soo gaaray ama dhibka ku yimid laacib macaani waxaan u rajaynaynaa inuu dhaqso ku soo kabsado haddii ilaahay rah kooxda kubadda cagta Elman waxay shaqada ka ceerisay macalinkii reer Uganda Robert Mayanji ayaa kooxda kubadda cagta Elman hogaaminayay tan iyo bishii Oktoobar 2016 macalinka reer Uganda ayaa shaqo fiican ku qabtay Soomaaliya tan iyo markii uu yimaaday bishii Oktoobar macalinkan ayaa hogaamiyay kooxda kubadda cagta ee Elman reerka Soomaaliya 2016-2017 waxa kooxda kubadda cagta Elman leeliyay 14 kulan waxay kala kulantay guuldaro kooxaha kubadda cagta Bnad Sport Club iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Gaadiidka macalinkan ayaa kooxda kubadda cagta Elman ku soo celiyay bandhigeedii loogu yaqaanay ee kaalmaha hore horyaalka inkastoo kooxiisa ay soo tigsatay booska labaad ee kala sarreynta horyaalka waxayna hadda leedahay 28 dhibcood war-saxaafadeedka ma soo saarin kooxda kubadda cagta Elman shaqo ka ceerinta ay ku sameysay macalinka reer Uganda ee Robert Mayanji balse taageerayaasha kooxda kubadda cagta Elman ayaa ka niyad jabay maadaama ay bandhig wanaagsan ku jireen macalinkana shaqada laga ceeriyay sidoo kale waxay soo dhaweeyeen macalinkooda cusub Cabdiwali Maxamed Cabdijoon magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka caasimadaha magaalooyinka bariga iyo bartamaha Afrika magaalada Muqdisho ayaa soo gashay booska saddexaad ee kala sareynta tartanka caasimadaha ee African Giant City oo sanadkan martigeliyay dalka Kenya waxaa kaalinta koowaad gashay magaalada martigelinaysa tartankan Nairobi labaadna waxaa soo tigsatay magaalada Kampala halka Muqdisho ay soo tigsatay booska saddexaad ee kala sareynta wiilasha kubadda kolayga ee Muqdisho ayaa wacdare ka dhigay ciyaaraha magaalooyinka Afrika oo sanadkan wacdare ka dhigay dalka Kenya taageerayaal aad u badan ayaa u sacbinayay wiilasha Muqdisho iyagoo u hambaliyay guusha ay soo hoyeen laakiin markii halkaas lagu soo gabagabeeyay tartanka caasimadaha magaalooyinka Afrika gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Yabrowish ayaa qoraal soo dhigay Facebookiisa qoraalkaas ayaana ahaa sidan wiilasha kubadda kolayga Muqdisho markii ay ku guuleysteen booska saddexaad waxaa nala guddoonsiiyay kaab soo kale lacag gaaraysa $1,600 lacagtan waxay wiilasha kubadda kolayga u garteen inay iskuulaha uga dhisaan agoonta ku sugan magaalada Muqdisho waana tilaabo horumar leh oo ay sameeyeen wiilasha Muqdisho waxaana soo dhaweeyay ra'yigan dhammaan bahweynta sportska iyo soo kale bahda kubadda kolayga dhinaca kale Ruushka waxaa ka socda tartanka Confederation Cup waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan groupka A ayaa la ciyaaray xulka kubadda cagta Portugal ayaa ka badiyay martigeliyaasha Ruushka ciyaar ku dhamaatay gool eber wiilka kooxda kubadda cagta Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii 9aad gool madax ka dhaliyay shaqo ilaaliyaha Ruushka waxayna ciyaartaas ku soo dhamaatay gool eber oo ay guush raacday wiilasha Portugal Mexico waxay soo dhaweysay wiilasha New Zealand waxayna ciyaartaas ku dhamaatay 2-1 oo ay guush raacday wiilasha Mexico groupka A oo ay ku jiraan Mexico Portugal Russia iyo soo kale New Zealand waxay wada ciyaareen laba kulan xulka kubadda cagta Mexico ayaa leh 4 dhibic Portugal ayaa la wadaago oo isagana leh min 4 dhibic Ruushka 2 kulan ay ciyaareen waxay ku jiraan kaalin saddexaad waxayna leeyihiin 3 dhibic halka New Zealand ay ku jiraan booska afraad ee kala sareynta waxaa la ciyaari doonaa groupka B kulamo ka tirsan
cameroon waxay la ciyaari doontaa waqtiga hore ee geeska africa australia halka germanyna ay soo dhaweynayso 9 xulka kubadda cagta jili waana kulamo xiiso badan xubintii ciyaarahana waana inta daawadayaal maxamed xuseen qalin leh wararkii ciyaaraha iyo barnaamijka wardheer noogu soo gudbiyey aad buu u mahadsan yahay waan ku faraxsanahay in siyaasadii aad ka nasateen isboortiskii iyo ciyaarihii oo weliba dalka ay ku jiraanna aad nala daawateen iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dowladaha xiriirka u jiray qatar oo ay ku eedeeyeen inay gabaad siiso waxa loogu yeero argagixisada ay la yimaadaan su-aalo iyo aragtiyo caqligal ah si loo xaqiijiyo eedeymaha loo soo jeediyey dowladda qatar wasiirka arrimaha dibadda maraykanka Rex Tillerson ayaa rajo ka muujiyey in dowladaha xiriirka u jiray qatar ay soo bandhigaan cabashooyin wax ku ool ah isla markaasina dhaqangal noqon karaya kadib markii Washington ay shaki gelisay ujeedada dhabta ah ee xiriirka loogu jiray qatar bayaan uu shalay galab soo saaray ayuu ku sheegay in maraykanku uu og yahay in dowladaha Sacuudiga Imaaraadka Masar iyo Bahrain ay diyaariyeen cabashooyinka ay kaga tabanayaan amaba u jeediyeen dowladda qatar oo ay ugu weyn tahay in ay magangelyo siiso argagixisada amaba ay taageerto wasiirku waxa uu sheegay in la joogo waqtigii wax walba ay qasab tahay in la kala cadeeyo qatar dhankeeda waxa ay sheegtay inay wada hadal diyaar u tahay waxa lagu eedeeyeyna waxba aysan ka jirin ugu dambeyntiina sheekadan ayaa warbaahinta maraykanka ay aad u hadalhaysaa waxayna tahay maxaabiis ku jirta xabsi ku yaala gobolka Virginia ayaa waxaa soo dhacay sarkaalkii waardiyeynayay oo baastoolad wata sidoo kalena ay u xirneed jaakada xabadaha la isaga dhigo laakiin maxay sameeyeen markii sidaasi ay dhacday nin la yiraahdo Johnny Motis oo ah duqa magaalada la yiraahdo Polk oo ka tirsan gobolka Florida ayaa sheegay maxaabiistan oo gobolka Virginia ah dhammaantood ay ku eedeysnaayeen dambiye fudfudud taa uu sheegay in 25% eedeymaha loo hayo amaba ciqaabta loo hayo laga fududeyn doono maxaabiistan ayaa ka shaqaynayay coos jarida meel qabri ah oo dadka lagu aaso cooska uu ku baxay halkaas oo uu kor ka ilaalinayay sarkaalka loo xilsaaray ilaalinta maxaabiistan wadnaha ayaa xaruuray deetana dhulka ayuu ku dhacay mid ka mid ah maxaabiista la yiraahdo Greg Williams ayaa waxa uu aragti ahaan yiri inagu waxaynu nahay maxaabiis banaanka ayaan joognay si wanaagsan buu inoo la dhaqmay sarkaalkan sidaasi ayaanan u taageernay markii dhibaatada ay ku dhacday maxaabiista ayaa sheegay in sarkaalkan telefoonkiisa ay isticmaaleen iyagoo ka furay jaakadii birta ahayd ee rasaasta la isaga dhigo iyagoo arkayana baastoolada ugu xirnayd dhanka midig ay u daayeen waxa ay waceen boliiska sidaasi ayana boliiska ay ku yimaadeen ma dhicin mid ka mid ah maxaabiista in uu fakado iyagoo weliba heli karayay fursadaasi laakiin waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa nin wanaagsan habdhaqankiisana aad aan ula dhacanay mid ka mid ah maxaabiistu isna dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in qoyskii uu ka dhashay ninkan maalintii xigtay oo gargaarkay u sameeyeen sarkaalkii waardiyeynayay inay u yimaadeen oo weliba biitse iyo weliba raashin kaloo fudud loo keenay duqa magaalada arrintan ay ka dhacday waxa uu sheegay in habdhaqanka noocaas ee maxaabiista ay horseedi karto in laga yareeyo xabsiga wuxuuna aad u ammaanay maxaabiistan gurmadka u fidiyey ninkii madaxda uga ahaa xabsigii ay ku xirnaayeen waxayna ka duwan tahay arrin ka dhacday isla gobol dalka maraykanka ah oo markii maxaabiis la doonay in laga wareejiyo xabsiga ay ku jireen loona wareejiya xabsi kale ayay dileen raggii waday ee waardiyeynayay waa tahay aad bay runtii u kala wanaagsan yihiin dabcan habdhaqanka qofka ayaa ah kan hogaamiya qofka sidaasina ama lagu tixgeliya amaba lagu ciqaabo sheekadaasi ayaa daawadayaal u dambeysay barnaamijkii wardheere oo halkan idinkala soo siinaya anigoo ah Aweys Xasan Maxamed Aweys Codey idin aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu dib ugu kulmayno barnaamijkan lamid ah waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo